halkan waa bartamaha magaalada Kismaayo waxaa iskugu yimaaday boqolaal shacab oo doonaya inay ka qayb qaataan soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre kadib markii uu ka soo degay garoonka waxaa halkaasi ka soo galbiyay madaxweynaha maamulka Jubbaland qaar ka mid ah wasiirada iyo xildhibaanada ka tirsan maamulkan 7 sano uu xilka hayay madaxweynaha maamulka Jubbaland waxay u ahayd bulshada reer Kismaayo markii ugu horeysay mas'uul ka tirsan dawladda Soomaaliya oo soo booqday in goob fagaara uu kala hadlo dadka siyaasadda falanqeeya ayaa arintan ku tilmaamay inay tahay olole hordhac u ah doorashada soo socota ee 2020ka guud ahaan shacabka reer Jubbaland waa u mahadcelinayaa halkan waxaa ka muuqata farxad iyo reynreyn waa ogahay inaad qorraxda taagneedeen waa ogahay inaad na sugayseen laakiin waxaan rabaa sida aad noo sugayseen inaan idinkugu sheego sidaas iyo si ka badan inaan raalli idinkaga nahay aniga iyo wafdigaygu waxaana aad idinkaga mahadcelinayaa qorraxda aad taagneedeen waxaan leeyahay ilaahay ha idin dhib yareeyo laakiin soo dhaweynta waa idinka qabnaa kal furan kibis duwan kalluun shiilan haddana kaafisaa la idinkugu daray waana ogolahay waa mahadsantihiin madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa isna soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inuu nagala soo qayb galo booqashada lagu yimaado ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Xasan Cali Kheyre iyo wafdiga hogaaminayo oo ay la socdaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida Soomaaliya taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha booliiska mudane ra'iisul wasaare iyo wasiirada saaxiibada hoostaagan ku soo dhawow magaalada Kismaayo inkastoo uusan ka hadlin ujeedada rasmiga ee halkan u yimid ra'iisul wasaaraha Soomaaliya haddana waxaa muuqata in la adkeeyo wada shaqaynta maamulka Jubbaland iyo dawladda dhexe la dagaalanka kooxaha al-shabaab oo dagaaladooda ku soo laabtay deegaanka Baarsanguuni oo 60 kiiloomitir u jirta magaalada Kismaayo